maanta waxaan idinla wadaagayaa warbixin kooban oo ku saabsan faras magaalaha ama townka magaalada Nairobi iyo masaajidka weyn ee Jamia. Bartamaha magaalada Nairobi waa halka ugu mashquulka badan magaalada, halkaas oo ay ku yaalaan suuqyo, bangiyo iyo xarumo dawladeed. Waa meel ay dadku si joogto ah ugu kulmaan, ganacsiguna aad buu uga socdaa. Taariikh ahaan bartamahan wuxuu ka bilowday xarun tareen oo la dhisay xilligii gumaysiga, taasi oo sababtay in magaalada si degdeg ah u korto. Sidoo kale, bartamaha magaalada waxaa lagu arkaa astaamo muhiim ah oo lagu garto Nairobi, sida taalooyinka iyo goobaha taariikhiga ah ee muujinaya horumarka iyo dhaqanka magaalada. Dhinaca kale, masaajidka Jamia Mosque Nairobi waa masaajidka ugu weyn uguna caansan magaalada, waxaana la dhisay horaantii qarnigii 20aad, wuxuuna ku yaalaa bartamaha magaalada. Masaajidkan waxaa lagu gartaa dhismo qurux badan iyo minaarado dhaadheer, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa cibaadada iyo nolosha bulshada muslimiinta degan ee Nairobi. Waa tahay saaxiibayaal, waxaan dhex joognaa townka ee magaalada Nairobi. waxaan ku sii dhownahay Jamia Mosque, townka magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaan ku suganahay. waxaana kaamirada iga duubaya Hamse Jamac. waa tahay saaxiibayaal, waxaa hadda dhex socnaa bartamaha townka magaalada Nairobi ayaan dhex socnaa. vlogga waxaa igu weheliya walaalkay Hamse oo markaasi qayb ka ah vlogga maanta aan idinkaga soo duubano magaalada Nairobi, gaar ahaan townka. Hamse, marka hore ku soo dhow Sayid Abu Media. ku dhawaad Sayid Abu Media. waa tahay Hamse, wadada amarina maxaa lagu magacaabaa? والله ودان ولي waxaa la Moi Avenue alla waa wadoonka ugu weyn magaalada Kenya. waa wadadan sax waa wada aad u qurux badan, waxaa loogu magac daray madaxweynihii hore ee Kenya. bartamaha townka magaalada Nairobi waaye meelaha ugu qurxoon Nairobi hadda waxaa waaye Jamia Mosque dhinacana naga xigtaa. hadda wadada waxaa ku sii soconaaba oo galeysay Thika Road. Jamia Mosque waa tagi doonaa ayadana xaggaas. masaajid waa masaajid weyn oo ku yaalo, waan idin tusi doonaa. marka hadda townkii ayaan joognaa. marka Jamia Mosque waxba nooma jirto, in yar ayay noo jirtaa, daqiiqada yar. marka ilaa iyo 15 daqiiqo wax saas ay noo jirtaa. haddii si fiican u soconana waxaa loo soconayaa waa 10 daqiiqo. Sayid Abu Media waa dad niyo aad u qurux badan. waxa waaye waxaan leeyahay ninkan garab istaaga, ninkan waa nin oo Faransi idinkaga maaday magaalada Baaqiyo idinkaga maaday. hatta ana taaf Faransi Baaqiyo alwa waa ka saay Faransi qaad la garab mugtay باقي مقصي تلو مقصي marka waxa waaye wadan horta aad ku jeclaa wadankaas. wallahi daacad marka laga soo hadlo French wadan aad ku jeclahay. luqadda xataa waa luqad aan dib badnayn, ana waligeey tagay xataa iskaga hadli karaa. ma sha Allah. waxa meeshan ku yaala waa beero dalxiis ah, dadka loogu talgalay in ay waqti ku qaataan. waan idin tusdeynaa insha Allah. halkan waa kana waa bartamaha townka magaalada Nairobi. halkan markaa imaad waxaad ku garanaysaa waa geedka qashinka lagu shubo. waa kana halkan ay dhigeen, meel walba u yaalaa sida, laakiin kama jirto xaafadda Soomaalida degtay isli, kama jirto meel qashin lagu shubo ama lagu rido.
halkan aad aragtaan waa beerta raaxada ah dadka inta halkan iska fadhiistaan halkan marka ay yani break ay qaadanayaan ardayda sida ardayda jaamacadaha dhigtaan sidoo kale dadka shaqeeya oo kale waqti iska qabtaan laakiin halkan xagaa waa caro madow ayaa waa dhowey roob hadduu da'o lama fadhiisan karo dad badan ayaa halkaas jooga oo beertan waqti ku qaadanaya saa ku aragtaan wadana waa Nairobi sidan townkii ayaan joognaa hadda واتهاي صاحبيال waxaa wali bartamahan kaga jirnaa vloggeeni waad kala socoteen Said Abu Media waxaan joogaa bartamaha ama isgooska townka magaalada Nairobi dhismaha dheer iga dambeeyo waxa la yiraahdaa I am bank haddii aad dabaqaas aragto hore ayaa ka garan karaa dadka inaan Nairobi joogto haddii aad Nairobi maanta xagga sawir ku galan waxay la mid tahay inaad Nairobi maan marka waxaan rabnaa inaan tago ilaa iyo masaajidka weyn ee marka la yiraahdo Jamia Mosque واتهاي صاحبيال waxaan imaaday masaajidka Jamia Mosque salaad casir ayaa la joogaa salaadan soo tukanayna kadibna insha Allah muuqaalkeena halkan ayaan ku xiri doonaa insha Allah asal baato inta kalena waa farce Axmed Nuur iyo Najiib Bargaanay haddii aad nala joogtay ilaa ay dhamaadka muuqaalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fadlan channelka subscribe dhe like saar asxaabtaadana la wadaag wixii fikrahna qaybta hoose inagu rab inta aan muuqaalkiisa xiga dib aan u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh